بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxa aan maanta dhigaynaa cashirkeenii ugu horeeyay oo ah English grammar. English grammarku waxa weeyaan waa hagaha waqtiyada ee maaragtay luqadda Englishka. Tusaale ahaan haddaan ku soo qaato waxa weeyaan waxaad ku kala garanaysaa waqti walba يعني sida aad u isticmaalayso waxa dhacaya. Tusaale ahaan saad u express garanayso ama aad u sheegayso waxa dhacaya. Inka tusaale aan ku siinaya idin siinaya hataa taanka mar dhow buu yimiday Soomaaligeena waa grammar mar dhow buu yimiday waxa weeyaan af Ingiriisi waxa uu dhigmaya wax la yiraahdo present perfect tense. Macnaheedu waxa weeyaan he has just come. He has just come. Maaragtay macnaheedu waxa weey sentence-yada ayaa lagu dhisaa ama waxa lagu dhisaa hadba xilliga ay wax ma garanaysaa dhacayaan. Imka tusaale ahaan haddaad wixii shalay dhacay ka sheekeynayso waa wax tagaydii. Wax tagayna waa maxay? Waa wax ma garan waxaad ku cadaynaysaa marka wax tagay haddaad ka soo qaado ka waran wax jooga aad ka intaad wax tagay ka waramaya aadama. Imka tusaale ahaan ninka waramada ahaa yimid aan ku iri ana koor mise qof kale ku iri I don't remember ma xasuusto waxaan war aawi hebeelow hadhow buu yimid uu yiri moogtay hadhow buu yimiday macnaheedu waxa weeyaan hadeer buu yimid ka wada marka waxa grammar la'aan ba haysa. Marka grammarku waa hab ma garanaysaa system ama hab qofka u ogolaanaya in uu ku kala garto waqtiyada ma garanaysaa waxa dhacaya waqtiyada oo ku cabiro. Tusaale ahaan hadduu yiraahdo shalay baan iskuul tagay de waa shalay buu iskuul tagay waa wax tagay ma laakiin hadduu yiraahdo ka waran shalay buu iskuul tagayaa tusaale ahaan waa khalad sama waxay waliba kala caawisaa oo ay ma garanaysaa in grammarku oo qofka u sahlayaa in uu qawaacida ama rukunada waba rukunka horta luqadda waa grammarku waa rukunka luqadda kadibna ereyadii baad ku dul dhisaysaa oo baranaysaa. Marka grammarkii markaad barato vocabulary-gii ama ereyadii cusbaan aad baratid walaas bas ku ka qabanaysaa hadii toolasaad ku fiicnaanaysaa Ingiriiska ku fiicnaanaya qof walbana ku fahmaya waxaad ka hadlaysid. Marka waxa weey wuxuu qofka u ogolaanayaa in uu raaco ma garanaysaa rukunada ma garanaysaa luqadda taas oo ku cadeynayo ma garanaysaa de sidii ma garanaysaa shalay iyo maanta iyo berri iyo يعني uu kala oran lahaa wixii yani ereyuhu oran lahaa sidii uu kala saari lahaa buu sahlaya grammarku waaba sidii baday. Marka luqadda Ingiriisigu waxay leedahay waxa la yiraahdo nouns waxa la yiraahdo verbs waxa kale waxa la yiraahdo adverbs waxa kale la yiraahdo adjectives iyo wax badan oo la mid ah. Waxaas oo dhanna waxa ay cadeynayaan ama ay wax ka sheegayaan ma garanaysaa dhacdo bay si kala duwan u cabirayaan. Tusaale ahaan noun-ku oo kale waa hal shay waa wax tusaale ahaan saqaf oo kale muxuu ahaa waan ku arki doonaa sentence aan soo galiyay ma garat maxaa la yiraahdaa kan kale muxuu ahaa verbiska oo kale. Marka noun-ku waa wixii loo yaqaan ama saqaf ha ahaado ama buug ha ahaado ama qalin ha ahaado waa nouns baa la yiraahdaa Ingiriisiga wixii magac oo dhan. Verbiskuna waxa la yiraahdaa waa waxa dhacdada ka sheega isaga oo ku dhacdada wax ka sheegaysa waqti weey. Tusaale ahaan grammar buu ku tiirsan yahay marka wuxuu oranayaa waxaan ma garanaysaa hebel school buu tagay. Tusaale ahaan Ali is going to school. Going kaas baa marka verbiga la yiraahdo ama marka verbku isbedela wuxuu ku tiirsan yahay grammarku hadba xilliga uu ku cabirayo. Marka grammarka waxaan nidhi waa cabirida waqtiyada. Marka verbiguna waxa weeyaan wuxuu hadii jeer ku tiirsan yahay oo la socda sidii ma garanaysaa dhacdada waqtigu oo yani dhacdada xilliga dhacda ama waqtigu xilliga uu ahaa. Tusaale ahaan Ali went to school baan Ali school buu tagay marka goodii ayaa went isku bedeshay oo ah wax la yiraahdo ma garanaysaa in past tense. waxaan dhigan doonaa waxaan dhaxbaxbadiyana u dul istaagi doonaa laakiin waxaan ka hadlayaa haddaan ilaado Ali school buu tagaana waa Ali goes to school ama they go to school ama iyagu school bay tagaan.
adverbiskuna dhacday iyo sida hay u dhacday wax ka falceliya. tusaale ahaan haddaan ma garanaysaa wuxuu yimaadaa shaqadiisa si joogtadaas baa adverb la yidhaahdaa. marka frequently oo magarata joogto. adjectiveskuna waxbay wax ka sheegaan oo tusaale ahaan haddana ninkani waa gentleman, he is a gentleman. gentlemankaasi waa adjective. qofkan buu ama object ama subjectkan qofkan buu wax ka sheegayaa moogta. he is heedi waxaan arki doonaa waxyaala pronoun ama subject. heedu marka pronoun ama subject bay noqon doontaa. magaranaysaa istaasina waxa la yidhaahdo magaranaysaa auxiliary verb ayay noqon doontaa iyaduna oo wax ka sheega magaranaysaa magaranaysaa qofku wuxuu yahay sheegta moogta. he is tagu ahaansho. gentlemanna waa adjectivekii oo waa nin caqli leh ama nin magaranaysaa karti leh oo wanaagsan weey. marka saa darteed baan halkan hoosta ugu soo qoran oo idhi all of them dhammaantood express waxay caddeeyaan an action dhacdo differently iyo si kala duwan u cabiraan. marka tusaale slide-ka labaad waxaan idhi erayo waxaa jira noun-na ah magaranaysaa oo noun ah. marka waxaan ka dhigaa magacaya noun ah. markaan lehay waa magac ah bay ka dhiganta. iyagoo magaca haddana hadhow tole waxay noqdaan verb. verbiguna waa maxay? wuxuu wax ka sheegaa waqtiga uu la socdo. waqti kasta hadduuna verbi ku jirin waqti maba noqonayo moogta. wixii baaska ahaa waa inuu verbi la socdaa oo magaranaysaa verbigaasi waxa weeyaan dhacdada wax markay dhacday wixii yacni wax ka sheegta dhacdadu wax ka sheegaa. tusaale ahaan cali went to school. cali wentida haddaan ka reebno oo verbiga ah to school haddaan cali to school sentence ma dhamaystirna. cali waa school. cali waa school macno weyn ma laha moogta. cali to school cali school buu magarata. laakiin cali went markana cali wuxuu tagay to school buu tagay. marka waa dhacdadaasoo kale sida marka imika tusaale ahaan I lost kani imika waa magac. marka tani on highlight-ka hoosta ka saaray een weyneeyey waxa weeyaan waa magac. imika I lost waxaan lumiyey ama iga halowday ama iga luntay my comb saqaftaydii. hadee kan kalena waa la mid. we need more water biyo badan ayaan u baahana. isaguna waa name oo waa noun. magarat travelkani waa magac. magaratay oo travel is good for experience. socodku wuxuu u wanaagsan yahay waayo aragnimada inay qofku waayo aragnimo helo yacni dhul badan oo ararko soo ma. marka waxaan nitusi doonaa imika sidan oo kale markay yihiin waa magac. magaratay water waa magac. combi waa saqaftii waa magac. water waa biyihii waa magac. travel waa socod waa magac. laakiin markuu noqdo isagoo verbana waa kanday examples of the verbs of verbs. haddaan idhaha have you combed your hair timahaagii ma feedhay. imika waxay noqotay waa erayo magacna ah verbina isku bedela hadhow. timahaagii ma feedhay. we are watching our garden. we are watering our garden. beertayada ayaan waraabinaynaa. marka watering waa waraabin. marka la waraabinayo maxaa la waraabinayaa beertii. marka waa verbi waa wax action imika dhacay. okay she will be traveling tomorrow. berri ayay socon doontaa. travelkii haddeer magaca ahaay imika wuxuu inoo noqday verb. waa in iloobay in halkan ka weyneeyo ma garatay aan weyneeyo aan ka dhigo 8 traveling. she will be traveling tomorrow. berri ayay socon doontaa. marka for travelingkii verb ayuu inoo noqday ma garatay. marka waxa weeyaan erayo noun-na ah. markan hore noun ah markan dambena verbi ah ayaa jira. marka ingiriisku waa fara badan yahay laakiin wixii ilaahay naga waafajiyo ayaa ni dhigi doonaa ni arki doonaa. marka ingiriisku waa marka verbiyadu marka waxaan idhi verbiyadu waxay ku xidhan yihiin yacni ku xidhnaanshaha verbiyada baan idhi. verbiyadu ama dhacdada waxaan wax ka sheegay verbi waxaa la yidhahdaa wax ma garanaysaa muhiimadda yacni wax ka sheega wax dhacdo wax ka sheega. tusaale ahaan verbigu waa waxan dhan ee cabiraya dhacdada laakiin muxuu ku tiirsan yahay? wuxuu ku tiirsan yahay waqtigii ay waxani dhacayeen. ma garatay. imika tusaale ahaan haddaan idhaahdo cali wuu seexday. cali ba kasoo qaada ma saciid wuu seexday. saciid slept haddaan idhaahno
on in the mosque haddana Saciid masaajidkuu seexday ama masjidkuu seexday. Okay, Saciid slept haddaan ka boodno sidii haddeer aan sheegaynay Saciid at the mosque ama in the mosque haddaan idhaahno maxaa meesha ka soo baxaya magaci ma dhammaystiran. marka had iyo jeer verbigu wuxuu ku xidhan yahay because slept ayuu sleep ka timiday ayaa keenaysa in uu verbigu ku xidhnaado in maxaa la yidhaahdaa in dhacdada ama ku xidhnaado waqtiga ay wax dhacayaan. marka hadda verbi baan idhi verbigu every verbi kaste that is expressing an action magaranaysaa tusaaya ama caddaynaya wuxuu ku xidhan yahay what is called tenses wax la dhaha ama xilliye ayuu ku xidhan yahay. marka xilliyadaasina waa maxay tenseska waa taan sheegna waxaan idhi waa system magaranaysaa kuwaas oo controla marka ay dhacayso marka ay wax dhacayaan kuwa oo controla. tusaale ahaan hadduu hadda dhacayana hadduu ka hadlaya hadduu shalay dhacayna shalay buu ka hadlaya marka waa controlaya wixii shalay ahana shalay uu wecinaya wixii maanta ahana maanta wixii beriyana beritoole. marka tanisyadaas ama waqtiyadaas waxa ay mas-uul ka yihiin 4 qaybood ayuu magaranaysaa maya 4 qaybood ayay mas-uul ka yihiin mid kastiba oo tenseskaasi iyagu waa 3 tense halkan inaan kusoo sheegay baan moodayay 3 tense. okay, waa 3 tense. marka tensiyadaasi iyagu waa 3 laakiin mid walba 4 ayuu ku 4 shay 4 dhaca 4 magaranaysaa waqti ayuu xabad kasta ka turjuntaa 4 waqti dhacday ama dhacaysa ama dhici doonta. okay, present tense oo kale simple present ayaa la yiraahdaa. halkan waxaan moodayay weyneeyay simple present wuxuu isagu cadeeyaa dhacday taas oo dhacaysa inta present waqtiga ama maalin walba dhacdaya. present continuous kan isagana aan weyneyno wuxuu cadeynayaa dhacdo taas oo imika socota. eegtani waa wax maalin walba dhacaya that happens beerka noqonaysa dhacda maalin walba dhacda. present continuousna wuxuu cadeeyaa waa presentiga wada hoostigayaan presentigaasi wada hoostigayaan. present continuousna wuxuu cadeeyaa wuxuu wax ka sheegaa in dhacdo hadda socota hadda present continuous imika kale waan hadlayaa soo ma I'm speaking waan hadlayaa I'm speaking magarayse I'm recording a video tusaale ahaan video ayaan duubayaa magarayse marka waa dhacdo hadda socota. marka presentigan magarayse in the presentigu unlikely continuing into the future magarayse wuxuu markaa suuragal ah inuu xitaa mustaqbalka sii socdo. present continuous imku dhacaya in mustaqbalka inuu gaadhana waa suuragal. present perfect midkan kale la yiraahdo ayuu isaguna ayuu presentigi oo kale hataa 4 ayaa waa present simple present aan soo sheegnay present continuous present perfect. present perfect wuxuu sheegaa dhacdo oo imika dhacday magaratay dhacdo oo hadda dhacday ama dhacdadaas oo dhacday wax yar ka hor oo in the past but laakiin connection to the present ama xiriirna lale waxa imika dhacay. marka waan kala qaadi doonaa laba present baa jira. present perfect wuxuu ka hadlaa waxa hadda dhacay wax imika dhacay. laakiin mid baa jira present perfect continuous tense la yiraahdo oo kan oo ka hadla wax soo bilowday mar hore ilaa imikana socda. describes wuxuu kan cadeeyaa marka present continuous kan an event taasoo bilaabatay in the past-gii bilaabatay waqtigii hore still continues to happen in the present ilaa haddana socota. marka presentigaas waa sidaan magarata. marka 4 bay ka mas-uul yihiin baan marka present tense-ku 4 ayuu ka mas-uul yahay. okay, past tense-kii baa inoo soo haray. past tense-kuna wuxuu ka mas-uul yahay wax bilaabmay dhammaadayna oo mustaqbal oo mar hore ahaa shalay ama darada iyo wixii ka horreeyay wax mar dhacay oo dhammaaday that began taasoo dhammaaday unended dhammaadayna kaasoo bilowday that began kaasoo bilowday unended bilowday unended dhammaaday in the past ama wixii hore maaragtay ama yani mar hore dee in the past wax hore. marka wuxuu cadeeyaa arrin dhacday taas oo bilaabatay dhammaatayna in the past xilli markaa oo hore ama shalay ama darada ama saako kale ama adigu past continuous baa jira oo dhacdo wuxuu sheegaa dhacday waqtigii hore oo waqti hore yani waqti shalay ama darada waqti adoo hore dhacday socotayna markaa muddo laba ay way dhamaatay wayna bilaabatay wayna dhamaatay laakiin muddo socotay marka unended in the past
wayna dhamaateynaya laakiin mudday socotayo tusaale haddaan idhaahdo cali iskuul buu tegayey laakiin mid kale ku daba lamaanaanayso iskuul buu tegayey markaa dee sentence ma dhamaystirnama cali iskuul buu tegayey markuu fadxiya arkay tusaalaha cali iskuul buu tegayey markuu arkay fadxiya marka taas marka waa dhacdo iyadoo socotay iyo dhacdo kale ka hor timiday ma garatay dhacdaa socotay dhacdo kale ka hor timiday marka anuu iskuulka iska tegayo tusaalahan ayaan fadxiya arkay ma garatay marka laakiin labadiiba way isla dhamaadeen fadxiyana waan arkay iskuulkiina waaban tegay past perfect mid la yiraahdaa isaguna jira oo ah isagu wax pastiganba kasii horeeyay marka wuxuu wax ka sheegaa in the event arrintaad occurred soo dhacday before mar hore inta ayna mid kale iyo past ayna ka daba dhicin before the event before the past event imka tusaalahan haddaan idhaahdo I had gone to school when I stumbled over iskuulka ayaan u sii socday markii aan Toronto rooday ama dee magaranaysaa waxbaa dee lugta ku dhifatay marka waa moogtay marka waa maxay iskuulkaan u sii socday markaan Toronto rooday ama waan seexday marka hurdaan ku jiray markuu ikciyay tusaalahan haddaad tiraahdo moogtay I was asleep ama magaranaysaa ama waxaa odhanaysa mataqaanaa I had slept I had slept when he woke me up maxay waa hurday markuu kiciyay I had slept waa verbigan sheegaynaa ku xidhnaa waqtiga because waqtigu wax ka sheegaa waa nidhi moogtay I had slept waan seexday goormaan seexay waa hurday goorma markuu ku kiciyay labadiiba past ay ku dhamaaday laakiin waa baas hore xadkaas marka waa arrin dhacday event taasoo dhacday before another event maaragtay it describes past event arrin oo past hore dhacday maaragtay before another past event marka arrin adoo wax ku jiray bay wax kale kugu soo kordheen marka waa sidaas imka tusaale kale hadda iniga siiyo waxa weeyaan I had read tusaalahan haddaa dhahdo waan akhriyey ma garatay when I lost my glass ma garatay cashir baan akhriyey markaa noqonaysa markaa muraadada iga luntay cashir baan akhriyey markay muraadada iga luntay when I lost my glass I had read a book ayaan akhriyey when I lost my glass my eyeglass waxa doontid ma garatay marka waa sida adoo wax ku jiray ayay wax kale adoo yacni waqti wax waday ayay wax kale ku soo dhex galeen okay waxa kale oo jira kan kale oo la dhaha past perfect continuous tense oo ah dhacdo bilaabatay xilli past kuna dhamaatay xilli past marka waxay wax ka sheegtay event dhacdo that began taasoo bilaabatay in the past waqti hore bilaabatay socotayna for period of time mudday socotay oo continued for length of time muddo and was in progress markaas way socotay when another past event happened maaragtay marka arrin kale oo magarasa oo past iyadna ay dhacday tusaale ahaan I had been working ama I had been riding my cycle waxaan waday baaskiilkayga I had been waan ku guda jiraya I had been riding my cycle baaskiilkaygii baan ku guda jiray markaasay taas maxay sheegaysaa waa dhacdo bilaabantay event bilaabantay in the past socotayna muddo intaas aan imika soo koofar garanayaa dhacdo bilaabatay socotayna muddo oo intaas moogtay I had been intaas u tala I had been riding my cycle ama my bicycle iska dheh baaskiilkayga ayaan waday marka goormaan waday marka waxayna ahaydna marka progressna way ahayd waqti wayna socotay laakiin maxaa soo dhex galay when another event happened marka dhacdo kale ku soo beertay oo yacni dhacdo kale ka hor timiday marka waxa baas baa ka hor yimiday wax kale ma aha yacni dhacdo kale unbaa ka hortay baasku kii qoriga ma aha yacni dhacdo kale oo yadna past oo waqti hore ah unbaa ka hor timiday yadna dhacay marka waxaan leedahay I was riding my bicycle I had been riding my bicycle baaskiilkayga ayaan watay
when yeah the car nearly hit me yeah markuu gaadhay ijeeri gaadhay when a car nearly hit me markuu gaadhay ijeeri gaadhay tusaale ahaan gaadha ijeeri baaskiilkaygaan waday markuu gaadhay ijeeri gaadhay markaa ijeeri gaadhay ama dulmari gaadhay marka waa sidaa dhacdo socotay oo adoo baaskiil baad ka wadatay marka gaariyaa markaas si degdeg kugu yimid oo ku jeeri gaadhay laakiin labadiiba imika waxba kama jiraan way dhaceen mar hore ahayd ay la socotaa okay future-kan aynu hadhay marka future-ku wuxuu ka sheegaa dhacdo dhici doonta mustaqbalka oo waa maxay I will go to school tomorrow beri iskuulka ayaan tegayaa I will go to school tomorrow maaragtay he will go ama I shall go will iyo shall labadaba waa la isticmaalaa waan arki doonaa kuwana faahfaahsiisan laakiin imika waa introduction oo kale camal waxaan igu sheegay laakiin waa idin faahsiinaya waqtiyada ay waqti walba dhaco marka future-ku waa mustaqbal kanina waa mustaqbal dhacdo dhici doonta muddana socon doonta oo imika tusaale ahaan I shall be visiting my uncle adeerkay baan booqan doonaa marka booqashadaada maxay socon doontaa muddo yar bay socon doontaa marka future continuous baa la yidhaahdaa waa I shall be ama I will be labada midkaa doontid baa odhan kartaa describes waxay caddaynaysaa an event arrin that will begin taasoo bilaaban doonta in the future mustaqbalka and continue soconna doonta a length of time muddo ma fahanta laakiin muddada weli lama cayimiya future perfect baa jiro describes wuxuu caddeeyaa marka waa future event waa arrin that will happen before another future event ma garad inta aan waa dhacdo dhici doonta waqti inta aynan maaragtay tu kale oo mustaqbali ayna dhicin inka tusaale ahaan I shall have gone to school before cinema oo kale waxaan tegi doonaa iskuulka inta aanan cinema uga tegin I shall have gone hadday I shall have gone perfect haddaad meesha aragtid mar walba have iyo has mid baa ku jira I shall have gone to school before the cinema marka taasi wata future perfect yaa la dhahaa okay future perfect continuous tense-na wuxuu caddaynayaa waa dhacdo taas oo ah taa oo bilaabmi doonta magarasa bilaabmi doonta will begin continue bilaabmi doonta for a length of time muddo and still be in progress when another future event occurs oo taasina marka waa dhacdo bilaabmi doonta laakiin socon doonta dee intayna arrinka mustaqbalka arrintu kale oo mustaqbali ayna dhicin imka tusaale ahaan I shall have been ama I will have been in the uni waxaan tegi doonaa jaamacadda I will have been ama I shall have been waxaan tegi doonaa jaamacadda ma garatay before marka dhacdo kale aad ku daba daraysaa de markaas before marka waa maxay before before wixii marka aad rabtid baa ku daba daraysaa may garatay marka iyagoo faahfaahsan ayaan kuwa dabadal laakiin inta ugu badan la isticmaala future perfect continuous-kana lama isticmaalo inta badan future perfect-kana lama isticmaalo ma garanaysaa inta la isticmaalo xagga dambe ayaan ka dhigan doonaa marka aad baan idiin salaamay idiin soo dhaweynayaa walaalaha qaaliga inaad ku raaxaysateen baan jecelahay aad iyo aad baan ii salaamay salaam